nasiib darro waxaan islahaa qofka keliya ee Soomaaliga ayaa koobka adduunka kuma tali doona dadka Soomaaliyeed oo dhan aad baan uga xumahay in magaalada Miami ee dalka Mareykanka laga soo celiyo isagoo ku dhex jiray 52 garsoore oo adduunka oo dhan kala socda qofkii keliya ee Soomaaliya ahaana keligii isagana gaar loo soo saaray dib loo soo celiyay dalka Turkiga dib loogu soo celiyay sababta ugu weyn ee loo soo celiyay anigu waxaan isleeyahay maaha xayiraadda Soomaaliya saaran waxa weeyaan baasaboorka uu sito oo ah diplomat passport halkuu qaadan lahaa civilian passport ayuu qaatay diplomat passport oo loogu talagalay madaxweynayaasha madaxweyne ku-xigeenada golaha wasiirada golaha xildhibaanada golaha garsoorka ee xeer ilaalinta iyo maxkamadaha iyo dadka ka shaqeeya wasaaradaha arrimaha dibadda iyo safaaradaha isagoon intaa ka shaqeynin xil qaran haynin ayuu qaatay baasaboorkaasi waxa loogu talagalay dadka madaxda kaliya sharciyada caalamka xitaa waxay dhigayaan haddii madaxweynuhu uu xilka ka dega xitaa in baasaboorka diblomaadka aanu qaadan karin hab maamuus ahaan mooyaane waxaan filayaa koobaad loo soo celiyay inay taa tahay waxaan uga taxadiray dadka Soomaaliyeed iska qaadanaya baasaboorka diblomaadka la yiraahdo cas inay aad iskaga ilaaliyaan haddii adduunyada u dhoofayaan waxaan leeyahay aad baan uga xumahay ninka Soomaaliga ee dhalinyarada ee dadaalay iyo waqtiga badan iskeliyay in dib loogu soo celiyo oo loo ogolaan waayo inuu Mareykanka galo ciyaartaana uu ka noqdo garsoor isagoo noqday 2025 garsoorihii ugu wanaagsanaa ee qaaradda Afrika